السلام عليكم. waxaan rabaa inaan halkan ku soo bandhigo arrimo aad iyo aad muhiim u ah. Arrimahaas oo khuseeyo xuduudda u dhaxayso badda Soomaaliya iyo Kenya. Siiba arrintan ay rabto Kenya inay muran ka geliso, sidaa darteedna ay xoog ku qaadato. Sidaad maapkan ka aragtaan, muddadii u dhaxaysay 1960 ilaa 1964 Britishka shirkadahoodii oo ahaa Shell iyo BP intaysan labada wadan xornimadii qaadanin waxay ka qodeen ilaa 7 ceel. waxaa idiin calaamadeeyay 6 ceelood oo ka mid ah 7daas. waxaa halkaa ka muuqdo 3 arrimood. midda koowaad, shidaalada badankooda iyo kheyraadka waagaa muuqday waxay ku ekaayeen deegaanka Soomaalida ee NFD. midda labaad, waxaa weeye arrimihii keenay in dhulka Kenya la siiyo sida dhulka kale ee Itoobiya haysato loogu daray Itoobiya, maadaama la rabay in quwadaha la barbardhigo ama la isu dheelitiro si Soomaalida aysan u helin waxaasoo kheyraad shidaal iyo badda faraha badan. midda saddexaad ee halka ka muuqato ayaa waxay tahay in baddan xuduudka ah ee la isku haysto ay ogaayeen Britishka iyo Kenyaatiga waagaa inuu ku jiray shidaal. arrimaha muhiimka ah ee loo baahan yahay in Soomaalida oo dhan ay wada fahmaan yaa waxaa ka kow ah mashruucan weyn ay Kenya wadato ay ula magac baxday Lamu Port South Sudan Ethiopia Transport ama LAPSSET project. mashruucaas oo baxayo qiimo gaarahayo $24.6 billion yaa markaad eegto xisaabaadka aysan ahayn wax caqligal ah. sababta aysan caqligalku ahayn yaa wuxuu yahay kharashka galahayo iyo investmentiga intaa la eg ma aha wax marnaba u qalmo waxa ka soo bixi karo projectyada iyo infrastructure-ka ay iswataan. sanadkii la soo dhaafay ayaa World Bank wuxuu ka codsaday PricewaterhouseCoopers inay ku sameeyaan baaritaan ama ay qiimeeyaan suuqa iyo mustaqbalka shidaalka Kenya uu leeyahay. waxay ku qiyaaseen matalan shidaalka ku jiro Turkana region inuu gaarahayo ilaa 800 milyan oo fuusto. dhinaca kale markii ay fiiriyeen Mandera Basin iyagana waxay ku qiyaaseen inay macquul tahay inuu ka soo baxo ilaa 600 milyan oo fuusto. sidoo kale markaynu fiirino natural gaska ku jira Kenya oo dhan inagoo ka reebayno badda ay Soomaaliya rabto inay muranka ka geliso, ma aha wax gaari karo faa'iidada ka soo baxayo mid u qalanta ama ku kordhin karta GDP-ga Kenya wax ka badan 0.5%. marka saa darteed waxaan halkaa ka fahmaynaa dadaalkan ay ku jirto Kenya iyo dowladaha reer galbeedka ee ku caawinayo inay aad muhiim ugu tahay inay ku guuleystaan helitaanka ama kala wareegitaanka ay rabaan inay badda Soomaaliya ka qaataan, sababtoo ah waxa kaliya ay ku xisaabtamahayaan mustaqbalka ama waxaasoo kharasha ay la gelin hayaan investmentyada ayaa wuxuu yahay faa'iidooyinka ay ka heli doonaan markay shidaalada badda Soomaalida ay qotaan. waxaa sii dheer halkaa iyagoo deymo ka qaatay World Bankiga iyo African Development Bank iyagoo ku xisaabtamahayo dakhliga ka soo geli doono shidaalada ka soo bixi doono badda Soomaaliya, taasoo keenayso inay u sahasho Kenya inay soo jiidato foreign direct investment siiba dhinaca khuseeyo shidaalka, gaaska iyo oolyada. sidaad ka aragtaan liiska ay ku soo qoreen bogga 24aad bandhigii ay sameynayeen, waxaan ka calaamadeeyay 2 ka mid ah ceelashii ay sheegan hayeen inay leeyihiin Kenyaatiga horeyna taariikhda looga qoday. sida khadda jaalaha ah aan ku cabiray waa xuduudan hadda muranka ka taagan yahay oo la isku haystay, waana ceel ku yaalo block L5 ay ka iibiyeen shirkadahan reer galbeedka. laakiin fallaadha gaduudka say tilmaamayso waxaa kaloo ku yaalo ceel aanan aad uga fogeyn xeebta Muqdisho taasoonan horey u sheeganin
hadda ka hor. haddaba haddaad isleedihiin Kenya shidaal kama qodan karto badda Soomaaliya iyadoo Muqdisho xeebteedii u muuqato, waxaad ogaataan in awoowayaasheen aysan weligeed ku fikirin in Kenya dhulkan Soomaalida ee NFD ay qaadan kartay. Aabbayaasheenna aysan ku fikirin in xuduudda badda u dhaxayso Kenya iyo Soomaaliya yaa muran geli karo. waadna aragtaan dhulkii NFD-na Kenya qaadatay, xuduuddiina hadda muran baa ka jira. waxaan aragnay astaamo fara badan oo gelin karo walwal Soomaalida. marka koowaad, isla sanadkii 2011 ay Kenyaatiga soo bandhigaan ceelasha ay sheeganayaan inay ku leeyihiin badda Soomaaliyeed, Chinese-kii inay u ballan qaadeen caawimaad ayna siiyaan hub iyo qalab casri ah iyo uniform. isla markaana Kenyaatiga ay u ballan qaadeen inay Chinese-ka siin doonaan qandaraasyada lagu dhisahayo siiba projectigan Lapset. waxaa kaloo dhacay isla sanadkaa inay shirkadda Total ay Kenya ka iibisay exploration rights xuduudda Soomaalida ay iska leedahay. bishii ku xigtayna ciidankii Kenya ayaa galay dalkii Soomaaliya. haddii Soomaalida ay ku guuleysato xuduuddan yar ee labada badood ee Kenya iyo Soomaaliya u dhaxayso ay ka difaacaan Kenyaatiga raba inay qaataan, waxay ka soo saaran karaan dakhli ku filan miisaaniyadda dowladda Soomaaliyeed ilaa laga gaarahayo 2050. waxay kaloo kaafin kartaa in wixii caafimaad ah iyo waxbarasho iyo waxyaalahan adeega bulshada ee daruuriga ah ay ka helaan 3 jiil ee soo socda mustaqbalka. faa'iidada kale ee dheeraadka ah yaa waxay tahay hadday Soomaalida ka kaaftoomaan baryada wadamada shisheeye, waxay u horseedi kartaa inay xor u noqdaan dakhligooda, kadibna ay ayahooda qumaati uga tagshadaan. waxaan kusoo gabagabaynayaa in cadowga koowaad ee ummadda Soomaaliyeed uu yahay siyaasiyiinta iyo madaxdooda. in la ogsoon yahay in madax Soomaaliyeed horay ay xuduudda badda u saxiixaan, haddana ay mar walba diyaar la yihiin inay saxiixaan. waxaan ku gabaabinaynaa in ummadda Soomaaliyeed aysan ku daynin mustaqbalkooda siyaasiyiintaas, ayna isku dayaan siday u hor istaagi lahaayeen una difaaci lahaayeen xuduudda iyo badaha Soomaalida.